wiilashii maanta ayagaaba leh gabar maaragtay gudan ma rabno Allah subhanahu wa ta'ala cad xaraana nagama beerin Allah subhanahu wa ta'ala anagoo dhameystiran oo aayad uu soo raaciyay waliba uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim laqad khalaqnaa insaan fi ahsani taqwiim waxaan idinka abuuray suurad tii ugu wanaagsaneed hawshu waxay taagan tahay waa miyigii way taagan tahay goobii fogfogaa bay taagan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim suma salaatu wassalaam ala ashraf al anbiyaa wal mursaliin ama ba'd wasaaradda haweenka saraakiisheeda waxyeelada kala duwan maan wasaaradda cadaaladda wasaaradda caafimaadka saxafiyiinta dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxa ay sharafayna maanta maalintaan weyn runtii joojinta gudniinka aafada ku ah haweenka aan kaga hadlayno ku gudbinayna sanadlaha afar ku gudbinayna fariimaha wixii guulo la gaaray iyo wixii maaragtay dhiman noo dhiman in bulshadeena xagga sharcigaba aanu gaarno anigu waxaan leeyahay intii iga horeysay waa runtii arinta abaartay meesha ugu muhiim qodobka ugu muhiimsan waxa weeye laba qodob midda koowaad ee ah in wacyigelintu maanta magaalooyinku way ka dhamaatay hawshu waxay taagan tahay waa miyigii way taagan tahay goobii fogfogaa bay taagan tahay in runtii miyigii loo dhaadhaco tan labaadna ay tahay meel fiican baa la gaaray guulo fiican baa la gaaray dawladii iska kala dambeeyay qoloba heer bay soo gaarsiisay maanta oo ay ugu dambayso ay tahay taalo baarlamaanka taana waxaan ka codsanaynaa cod dheer iyo cid gaabanba ku leenahay baarlamaanka cusub oo yimid in meesha ay taagan tahay uu ka ambaqaado oo gudniinka aafada ah oo mujtamaca adduunka uu ka tagay caalamka islaamna meel laga isticmaalo aysan jirin dambiyadiisa la og yahay aakhiro iyo adduunyo aakhiraba ciqaabtu leeyahay in mujtamacii laga wacyigeliyo oo ay soo saaraan heerkii maanta wuxuu marayaa culimo waa ka soo gudbay golayaashii xukuumadda cid walba wuxuu maanta marayaa in laga qaato go'aan dawladeed ayaa loo baahan yahay ficilka dawladeed baa dawladiina ficilkeedii waxa ugu mudan hadda ay taagan tahay baarlamaankana si dhaqso leh in insha Allah iyagana qodobka koowaad ay arrimaha bulshada ay ka qabanayaan inay taa noqoto tan labaad anoo ku hadlaya magaca SMWCD oo origin ahaan ururkaas u qareema dadkii dhaqan ahaan ka soo jeeday ee barnaamijkan sameyn jiray caafimaad ahaan u sameyn jiray runtii wuu isbedelay barnaamijkii dadkaas awal ayaga lagu yaqaan laakiin maanta wuxuu gaaray bulshadii oo dhan in laga raadiyo nolol laga raadiyo noloshaasna waxay aafaynaysaa mujtamac badan hadda miyigii buu taagan yahay barnaamijkii weli maaragtay islaamihii ma deynin waa iska dhaxleen marka waxaan leenahay qof kastoo naga mid ah waa mas'uul qof kastoo naga mid ah waa dareemayaa dhibka uu leeyahay inkastoo maanta aan leeyahay hooyooyin badan oo ay ka gudbeen arinta ka badbaadiyeen ubadkooda ayagu ha ku dhaco laakiin ubadkooda ay ka badbaadiyeen baa jira oo laga ilbaxay qaasatan wiilashii oo maanta aan garab u helno ayaga awal waxa la dhihi jiray gudniinka loo sameeyaa waa in rag baa loo sameeyaa oo maaragta gabadhu hadii kala kanay noqonaysa keenay noqon wiilashii maanta ayagaaba leh gabar maaragta gudan ma rabno gabar gudan ma rabno marka waxaan dhihi lahaa naftayda iyo naftiina dad islaam aan nahay cabsida ilaahay ugu dhawaano Allah subhanahu wa ta'ala cad xaraana nagama beerin cad ma u baahan in bini aadan uu farsameeyo nagama yaalo Allah subhanahu wa ta'ala anagoo dhameystiran oo aayad uu soo raaciyay waliba uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim laqad khalaqnaa insaan fi ahsani taqwiim waa u samaysanaa waxaan idinka abuuray suurad tii ugu wanaagsaneed marka qof bini aadan gacantiisa waxay bedelayso waxa ila tahay waxa noo geeniyay jahli bay ahayd maantana jahligaas waa insha Allah waa ka baxnay meeshii u dambeysay israacinteedaan mareena inta ka dambeysana waxay ila tahay inay fariintii daadajino ayada wasaaraddeena ay hormuud noogu tahay aad bayna wasaaraddu runtii u mahadsantahay iyo bahwadaagteeda si maaragtay maalin walba maaragtay u joogteeya inay barnaamijkan ka qayb galaan marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh macmiil shirkadda isgaarsiinta ee Golis waxay ku haysaa adeeg internet xawaare sare leh qiimo jaban aad ku gashan kartid gurigaaga ama goobtaada ganacsiga fiber optic shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa kan ugu xawaaraha sareeya guud ahaan dalka si aad isaga diiwaan gelisid fadlan wac lambarka gaaban ee 181 ama booqo xarumaha shirkadda Golis